sida uga waxaan haweeneyda muslimka guriga kan si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta hadii la yiri waa urban atraba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xural caynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaan leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb kamid waa madmuum qayb kamidina waa mamduux waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliyo kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yiri uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxa yiraahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu ar-rafath ay culimadu leeyihiin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxay yiraahdaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis casiya waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhi meel bay fadhiisatay way wartay qolaa waxay ku yidhaahdeen ma bacda hada min hada labadana waddo kala foga inaad cusburato mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaas waxay tidhi bay yidhaahdeen bayt ay leedahay ilaahay dhan buu igu leeyahay aan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leedahay aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin sawgeed buu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi isna wuxuu tilmaamaya xadiiska jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa oo albani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idin sheegaabu nabigu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayhi haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad oo nabigu siiyay wuxuu ku sheegay alwaduud alcaud ala zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كذا جعل كبار كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدنيا تشوجي جنة قلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي تجعلني كذا ووحدة ليسة وعودة خير يونا يقول كذا kula noqonaysa ta hadii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tiraahdaa wallahi inaana waxba dhadhamin in la raali noqoto mooyaan hadii xataa iyada la dhibo buu nabigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kasta waa u taagan in ninkeeda raali galiso walidalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yiraahdo Mareykanka ee leebugan ay u bixiyeen tarjumadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen oo iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay in ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambe waxaan fikiray bay leedahay raadiyay maxaan anigu ninkeygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadatay interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidaalك baa waxay qortay book ay dhadaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك باي بوغا فكرتي سودم وانت نينكو اللباح باي لهدي هدي اد اسكو سو تاغتنا وكعوني هدادن او ججبناتنا افكيساد kala bixi bay leedahay waxa ku jira sidaradeed jajabnay isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sidaradeed ba Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibay leedahay dabeetana markaan u dhiiba wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray reerkeedu ku yaalu ka daba cabaa nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba markaa inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi sidoo dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmayna ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo ku jiifsanayo habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lin tanazzuh wa nabiy rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo konton jira
odhan anigu oday baan ahayo dee dhallinyarada raacraacda islaamaha anu ma dabagala maaha. waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa madiina iyo nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo 50 jira ayaa waxay leedahay biknik baanu wada bixi jirnay. bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh ma qarsanaynin xataa kalgacalka. innaga waxaa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed bal kudha gabadhaadaba jeceshay hayru macquul. waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay. nebi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka yaad u jeceshay dee caasha buu yidhi nebigu. nebi maxamed su-aala la weydiiye dadba yaad u jeceshay oo yidhaahda caasha. markaasay idhahdeen raggaanu u jeednaa. markaasuu yidhi abaheed abubakar. idan waxaa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay. cagsiga waxaa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan uu jecel yahay. ma aha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhaahdo reerkaygii ayuu afka kala warwareegaya. marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahy. asalku laakiin waxa weeyaan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan. bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nebigu hadiyada u diray. caaisha waa tii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiixu muslim ku yaalay. marka neef la qalaba nebigu wuxuu idhaahdaa khadiijo asxaabteedii hilibka wax uga dir. hatay caaisha lahayd weligay gabadh kuma hinaasin haweentaa dhimatay oo aanan isa soo gaadhin sidaan ugu hinaasay bay leedahay. siduu nebigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan ugu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay. bale asxaabteedii iyo dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay.